shirkii uga furmay gaashaanbuurta NATO magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain ayaa kaga duwanaa shirarkii hore oo NATO waxyaabo badan. Waa markeeda koowaad waxaa ka soo qayb gala shirka labada dal ee ku soo biiraya dhowaantan gaashaanbuurta NATO Finland iyo Sweden. sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu sheegay in la sii adkeynayo difaaca wadamada qaybta ka ah gaashaanbuurtaas. waxa uu ballan qaaday maraakiibta wax burburiya inuu geynayo dalka Spain, sidoo kalena in dowladda Mareykanku qaabab difaaca cirka ay ku xireyso dalalka Talyaaniga iyo Jarmalka. waxa kale oo uu ballan qaaday madaxweynaha Mareykanku in ciidamo Mareykan la geyn doono dalalka Poland iyo Romania. gaashaanbuurta NATO ayaa 10 sanaba istiraatiijiyad hor la qaadata. 10 sano ka hor markii shirkan oo kale la isugu yimi, dowladda Ruushku ma ahayn mid loo aqoonsaday cadow inay ku tahay gaashaanbuurtaas, balse haatan dowladda Ruushka ayay u aqoonsadeen inay tahay cadowga koowaad oo NATO leedahay. sidoo kale markii ugu horreysay ayay dowladda Shiinaha u aqoonsadeen inay tahay tan kaliya adduunka ka talintiisa kula tartamaysa iyaga. waxaana taa markhaanti u ah waa markii ugu horreysay ra'iisul wasaare ka socda dalka Japan uu ku soo biiray kulankan. dowladda Ruushka ayaana waxba uga dhignayn magacaabidda ay ku magacaabeen inay tahay cadowgeeda. Ruushkuna waxa uu ahaa mid weligiiba ogaa in dowladaha reer galbeedka ay cadow isku yihiin. dowladda Shiinahana horeba waxaynu u ogeyn inay tahay mid kula tartamaysa Mareykanka ka talinta adduunka. waa dalka ugu dhaqaalaha badan, ugu dadka badan, uguna wax soo saarka badan adduunka. markii dhinacyada laga eego ayaana ka muuqan wax weyn oo horumar ah, balse istiraatiijiyadda ay qaateen ayay ku sheegeen 10 sano soo socda inay tahay mid ay meel iskaga saari doonaan dalka Ruushka.